hay-adda NAF ee dhanka dhaqaalaha iyo cayrta u qaabilsan dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay galdacwadeed ku soo oogtay haweeney 30 jir ah taa oo lagu soo waramayo in ay hay-addani ka qaadatay lacagta shaqada oo aysan xaq u lahayn muddo 5 bilood ah. Haweeneydan da'deeda lagu sheegay sodomeeyada ayaa lagu soo waramayaa in ay ka shaqeynaysay goob maqaayad ah taa oo ay shaqadii ka dhamaatay kadibna ay codsatay lacagta shaqa ku suga taa oo ay ka heshay hay-adda NAF. Hayeeshee NAF ayaa ogaatay in haweeneydani uu soo gala dakhli kale oo ay leedahay shabakadda OnlyFans ee social media taa oo ay ka kasbato lacaga badan. Waxa ayna NAF ku waramaysaa in haweeneydaas muddadaas ay NAF ka qaadanaysay lacagta mushaar ku suga ah oo ay shaqo la'aanta ahayd in ay shabakadaasi ka heshay adduun lacageed oo gaarayo 480,000 oo karoonka Norwejiga ah. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay haweeneydani aaminsan tahay in dakhli fara badan uu ka soo galaya shabakadan internetka ah ee social media ka mid ah taa oo ay haweeneydani caan ka ahayd lacaga badanna ay ka sameynaysay. Waxa ayna muddada oo ay NAF ka qaadanaysay lacagta shaqo ku suga ah maadaama ay shaqo la'aan haysay. Waxa ayna lacagta ay NAF ka qaadatay muddada ay shaqo la'aanta ahayd ay gaaraysaa ilaa 164,000 oo karoonka Norwejiga ah. Maxkamadda ay NAF geysay galdacwadeedkan ayaa haweeneydan sodomeeyada jirta ku xukuntay 35 maalmood oo xabsi ah iyo sidoo kale in ay bixiso kiiska dacwadiisa oo gaaraysay 2,500 oo karoonka Norwejiga ah. Haweeneydan ayaa ku andacootay in ay shaqo la'aan ahayd oo ay shaqadii ay kaga shaqeynaysay maqaayadda ay ka soo dhamaatay. Lacagtan shaqo ku sugana ay xaq u lahayd in ay codsato balse aysan sharci ahaan ogeyn in haddii social media ay dhaqaale ka sameynayso oo aysan ahayn shaqo joogto ah ay lacagtaasi u xisaabsan tahay NAF oo lagu soo dacweynayo laguna soo oogayo dacwo ah in ay lacaga ka kasbatay social media oo ay NAFna wax ka codsatay. Dad badan ayaa laga yaabaa in aysan xogaha noocaasi war ka hayn maadaama haddii aan NAF lacag ka qaadanayso xitaa haddii ay lacaga aad u yar kaa soo galaan social media waa in aad qaybta dakhliga lacagta ku qortaa lacagta ku soo gashay. Haddii kale waxa ay kugu noqonaysaa sida ay sheegtay hay-addan kiis dacwadeed ay kugu soo oogi doonaan maadaama dakhli uu kaa soo galay shabakadaha cankabuudka ee internetka. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.